خدك التليفون كشبكة عالمية ودور أونلاين وحا كتير جيف عاقل عبد الله محمد ديق أو كميضة جيف عاقل كبيش أقول الجراد أما ديجان كودود جيف عاقل ما يمغلصه جيف عاقل كومريا جيف عاقل لو أنتم وحا سفر كتكتين مقالة هرجيسة سانفيلو يا يمكن وحد كسجنتين مقالة هرجيسة صوما واتاي سفر كيناسي aad ku tagteen Hargeysa ee aad kaga baxdeen amba baxdeen magaalada Woodward maxaa uu ku saabsanaa Chief Aqal adeer wuxuu ku saabsanaa marxaladii jiray ee ahaa dadkii dhintay iyo ujeedooyinkii shirkii hore ee gobashii Woodward uu qabtay wixii ka dhinaa marka hore kaasaan u tagnay marka xiga وحويان deegaanku dadina oo la haysto ma jiro wuxuu ka afsaamay wax kasta oo adeegyada arrimaha bulshada waxa jira maqan oo gaadiid leh gaadiidka iyo gawaadi kale oo hore marka waxa saameeyay ujeedadii aan u tagnay ay ahayd in xal loo helo oo dadka magtiisina la helo nabadgelyaduna ay markaas sidaa ku xasisho ku dhamaystiranto iyo mashaariicdii dadka loogu talagalay in wax qabadkii dadka ee deegaanka laga qabanayay wixii aan ka qabsoomin iyo wixii kale lagu soo biirinaya haddii ay ku sabab qoriyay waa fiican tahay adeer taasaan u tagnay waa tahay Chief Aqal waxa tahay Chief Aqalkii deegaanka arrintan adiga hormuuda horboodaya sidoo kale gudiga kula socota gudoomiyahoosi ayaa tahay bal arrintan waxa nooga warantaa gudiga kula socota ee xubnaha ma aragtay deegaanka ka raacay arrintaas kala socda xubnaha ugu culculus bal wax nooga taabo adeer waxa weeyaan uqaal beereeyeen Ahmed Saalax Ahmed Bayri wakiilkii garaadka Iriya Maxamed waxay leeyihiin uqaal kale oo deegaanka horta garanaysid oo ka mid yihiin kale Maxamed Cabdi Shaqaale odayaal kale wax garada aqoonyahan iyo saraakiil baadan way ka koobnaayeen waan gartay mabda'a ugu culusaad meesha waadeen dadka la laayay ma dadkii dagaaladii ku dhintayeen degmada Woodward baa ee maamulka Soomaaliland iyo kal hore 2010kii ma dadkaas dadka magtooda la doonaya adeer dadkaas aan raadinay oo maaragtay aad garanaysan oo jiray oo si lagu heshiiyayna ahaa awal qodobadii hore dadkii hore lagu heshiiyay shirkii Woodward oo harsanaa dhammaystirkooda waa dadka adeer waa tahay dhinaca maamulka Soomaaliland markii aad tagteen ka waran halkaasi maxaad kala kulanteen adeer wanaag baanu kala kulannay waa aragnay wali wasiirada iyo madaxweynihii iyo waanu aragnay si waan noo qaabilay waanay ka garaabeen wixii aan u gudbinay ee ka jiray haggooda laga doonayay waana fiican tahay hawsuna way socotaa waana sugaynaa adeer dhammaystirkeeda waa tahay shacabka deegaankii ama guud ahaanba deegaamadani waxay gudiga waxay leeyihiin gudigani arrimaha ay u socdeen ilaa imika kama warhayaan badankoodu marka mabda'yo kale qaarkood aaminsan yihiin shacabka maxaad ugu baaq lahayd oo dhan lahayd waxa loo lahaa baaqyo badan baa shacabka udhigiina soo gaara baaqyadana waxaa ugu liita wixii aan daniidin ku jirin inaad aqligiina ku garataan waa yani inaad garan weydaan waa liidasho waxaan daniidin ugu jirin waxaan idinku baaqayaa nabadgelyo iyo wixii dani ku jirto aynu isla ilaalino waqtigaas ergadaas tagtay ee ka kooban dhammaan ardayada guleed garaad ama barkad waad ogtihiin wixii jiray ee maqnaa ee hore u qaadateen baan anagu doonay waxaan ku soo daray karnana waa ku soo daraynaa waxa weeyaan dan u gudba waxaan waxba idinka sariyo 10 hanyaan laydinku wareerin baaqyo badan oo khalkhal gelin kara ama dib keeni kara ama dadka isku dhufan karanayaan laydin gelisiin ama anaga iyaga kan maarkay khalad laydinka tahansiin weyn ma isloogeen waxgaradka iyo dhammaan deegaanka iyo jawaabtii aynu wax badan ka shiray ee golayaal gaara iyo shirar gaara aynu kaba wada qaadanay tegista intaas kadib rajaduna way fiican tahay annagana si wanaagsan bay noogu socotaa hawshii aad noo idmateen
wakiil kalaanu idinka ahay sidaa awgeed meelaad joogtaanba waxaanu idinka digaynaa wixii dhibaatay loo keeni karaya intaas haladeer u gudbinayaa beelweynta fuleed garaad iyo ummadda kalaba. waa tahay caaqil markaynu ka nimaano dhinaca beesha deegaankii dadka deegaamada kale ku hareeraysani dhankaas iyagoo arrinta si kale u dhigayaan oo arrintaasi farta ayay ku godeen waxay idinku tilmaameen horgalo dhinacaasi u goostay kuwa maxaad ka leedihiin adeero wixii la doono waa la oran jiray ciidayaduba awalba waxa ay nagu sheegayso ahayd annagana dabar nagu ahayd haddii la maagmaagtay hadday wax naga sheegtay midna muraad kama lihin idna danaha iyaga uma daba fadhino una joojin mayno hadduu mas-uul yahay iyo haddii uu cid kale beel yahay iyo haddii uu maamul kale yahay midna danaha iyaga uma daba fadhino wixii horay loogu macaladarrada loogu habsaamshay bulshadan reer walbuna dib loogu habsaamin maayo. waa tahay caaqil deegaanku waxaad leedahay arrintan ambabax iyaga guud ahaanba way ka dhan yihiin waana isla ogyihiin shirar baa laga galay mudday socotay 3 bilood 4 bilood baa qabanqaabadani socotay waa la isla ogaa xarunta magaalada wilwil bay ka socotay deegaanadaanu baaqiyo wada diray ergooyinka halkan joogaan 4 jahay isaga kala yimaadeen ee deegaanka waan gartay marka adeer waa la isla ogaa waxaanu anaga noo gaara maaha adeer. waan gartay ugu dambayn shacabka maxaad ku odhan lahayd oo baaq ugu jeedin lahayd arrimahan idiin socda waxaa la yidhi daraawiishe ilkiina waka dhulkiina waka waxaa kaloo la yidhi wixii umusha u daraba ilmaheedana u dana waxaanu ku maqanahay waa dantiina waadna garanaysaan waanaynu ka ballansanayn ballantii darbarkay ka baxdaa waa bakayna qaleen. waa tahay caaqil waa ku salaamayaa waana kaala socon doonaa wixii dambe ee ka soo kordha arrimihiinaasi aad u joogtaan intaynu ku kulmi doono waraysi noocan oo kale waxaan idinkaga tegayaa anigoo cabdicira iyo jiif caaqil cabdilaahi maxamed dheeg oo ku sugan magaalada Hargeysa. caaqil waa ku salaama sidoo kale waa kaa qaaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.